بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة هي حلقة كلة وإن كفيرنا إنه ما كجاه الله إنه ما دام رمضان كي جبية هاي صلاة عيد هي سيدي لو تكن له صلاة عيد طبعا وين نقانا وين تكنشرني ولا سلا تكنشري dadkuna inta badan maadaama salaad cibaadadu ay soo noqnoqotay inta badan way yaqaanaan oo way garanayaan laakiin waxa keenay hadda inaynu waxoogaa isdul taagno arintan duruuftii lagu tukan jiray ayaa wax badani caalamka intiisa badan iska ka gedisan tahay waqtigan hadda aan joogno caalamkii inta badan kala xidhan masaajidii oo xidhan goobihii caamka oo la isugu iimaan karin marka sidee loo tukanayaa salaadii ciida duruuftan xanuunkan uu keenay coronavirus-ka dadkii noloshoodii kala xidhay dad badan isu iimaan karaynin sidii loo tukan lahaa ayaan jeclahay insha Allah taala inaan wax yar ka tilmaamo qodobka koobaad aan jeclahay inaan tilmaamo waxa weeye salaada ciidu nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam baa jideeyay noloshiisana nabigu kama tagin sallallahu alayhi wasallam intii la jideeyay wuu tukan jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam ummadana wuxuu amray inay u soo baxaan oo xataa la soo saaro dumarka gabdhaha aan wali guursanin guryaha kamayna bixi jirin xataa gabdhaha in la soo saaro in xataa la soo saaro dumarka caadada qaba in xataa banaanka ay u soo baxaan oo ay ka qayb galaan ciida ka qayb galaan ducada muslimiinta ka qayb galaan salaada iyagu ma tukanayaan nabigu sallallahu alayhi wasallam marka aad buu ugu dadaali jiray sallallahu alayhi wasallam salaada ciida mudnaan khaasa ayaa la siin jiray ciidan marka ciidul fitriga ramadaanka dhamaadkiisa gasha waxay ka mid tahay labada ciidood ee waaweyn ee muslimiintu leeyihiin tan waa ciidul fitriga mid xajka muxuu ahay dhexdiisa ana waa ciidul adha taa dambaana weyn labadooda ciidul adha labadooda weyn tan ciidul fitri way labadooduba cibaado weyn oo cibaadaadka kamida ayay ama ku dhex jirtaa ama ka dambaysaa ciidul fitrigani soonkii oo tiirarka islaamka kamida markuu dhamaaday ka dambaysaa ciidul adhaduna xajkii oo tiirka shanaad ah ayay iyaduna maalinka tobnaad bay gashaay oo acmaashii xajkii ku dhex jirtaa maalintii xajkii oo gabagaba ah bay iyaduna gashaa labadaas ciidood waa labada ciidood ee nabigu sallallahu alayhi wasallam uu jideeyay waxa saddexeeyay ciidaha muslimiinta waa ciida usbuuca oo jumcada ah haddaba salaada la tukado ramadaanka kadib ramadaanku markuu dhamaado salaada ciidu nabigu maadaama uusan ka tagi jirin daa'imi jiray xukumkeeda ay fuqahadu isku khilaafeen qaar waxay leeyihiin waa sunno adag oo waajib ma gaarsiisna sida maalikiyada iyo shaafiiciyada kale qaar waxay leeyihiin waa waajib sida xanafiyada kale maxay nabigu sallallahu alayhi wasallam amray kama tagin waxay ku tusaysaa inay arin culus tahay qaar waxay leeyihiin waa fardul kifaaya oo hadii bulshada qaar kamida sameeyso qaar ka kale dambigii waa ka dhacaya adigu tafaasiisha fiqiga ah ayaa ku jirta xukumkeeda ma waajib ama waa sunna marka laga hadlayo xagee lagu tukadaa salaadaas nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam xadiistiisa sida ku sugan masaajida muusan ku tukan jirin nabigu sallallahu alayhi wasallam banaanka ayuu u bixi jiray meel musalla la yiraahdo oo waxa jira ka baxsan masaajida ka baxsan oo dadku u wada bixi jireen oo nabigu salaada ciida u aadi jiray sallallahu alayhi wa alihi wasallam sida marka waxa weeye inay cudurdaar yimaado mooyaane oo mesela roob dadkii xanibo ama la bixi kari waayo ama duruufo kale soo kordhaan sida hadda taagan oo kale mooyee asal ahaan waxa weeye in banaanka loo baxo oo banaanka lagu tukado masaajida lagala baxo salaada ciida ayaa asal ah waa sidoo nabigu sameyn jiray sallallahu alayhi wa alihi wasallam salaada ciida haddii isu imaadkiisu roobi waayo asal ahaan
fardina waa loo tukan karaa jamaacana waa loo tukan karaa jamaacadu in la wada tukado dad badan wada tukadaan oo la isla tukado waa sunnay leeyihiin laakiin sharti uma aha salaada sixadeeda salaada xataa iyadoon duruuf adagi jirinba oo dadku ay soo imaan karayaan hadduu ruuxu goonidiisa u tukado culimada badankood waxay qabaan salaadaasi waa asaxaysaa marka jamaacada iyo wada tukashadu asal ahaanba waxay leeyihiin waa sunnay qabaan in badan oo ka mid ah culimada muslimiintu xilligii saxaabada ridwaanullaahi calayhim waxaa dhici jirtay haddii ruuxa ay salaada imaamku dhaafto oo maalan dadkii bannaanka ku wada tukanhayay salaaddii baa ka hor dhacday waxay samayn jireen guryahooda caruurtoodii iyo ehelkooday tujin jireen qaar gooni bay isaga tukan jireen sida uu tilmaamayo aharka Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu warḍاه ibn Abi Shayba iyo Bayhaqi waa soo saaray waana saxiix وكذلك بخاري با تعليق كوريي سو معلق بصيغه الجزم وحليه أنس بن مالك صلاه عيد امامك ولا تكنيا هداي dhaafto wuxuu kulmin jiray ehelkiisa gurigiisa dadku nool kulmin jiray fasalla bihim mithla salati al-imam fi al-eid markaas wuxuu tujin jiray salaadii uu imaamku ciida ku banaanka ku tukaday mid lamida ayuu ehelkiisa iyo dadka gurigiisa tujin jiray Anas bin Malik khaadimkii nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam marka taa waxaynu ka qaadanaynaa duruuftan hadda taagan xanuunkan uu keenay dadkii la kala xirxiray ee guryaha lagu xareysan yahay ee aan meel banaan la isugu imaan karin ayadoo naftii bini aadamka iyo caafimaadkii loo baqayo waxaan helaynaa in aan guryaha ku tukanno oo salaadii ciida sidii salaadihii jamaacaadka ee waajibka ahaaba masaajidii markii la xiray guryaha loogu tukada loo yiri guryaha lagu tukado salaada ciidana sidoo kale guryaha ayaa lagu tukanay insha Allah taala kolba dadkaas wada degan ee guriga ku wada nool ayaa wada tukanaya deelaha qaar kood masaajidu u furan yihiin ayagu ama banaanadaba tagi kara mushkilo male laakiin waxaan ka hadlayaa duruufta hadda anagu aan ku noolahay kala dadka ku nool oo masaajidiina la isugu imaan kareynin banaanna la isugu tagi kareynin markaas waxa weeye salaadii ciida waxa lagu tukanayaa guryaha ayaa lagu tukanayaa xilliga la tukanayo intii heli karta guriga dadka wada joogana imaam bay yeelanayaan oo way ku imaamkoodaas iyaga istujinaya ruuxii keligii ana kelinimadiisu u tukanaya salaadu insha Allah taala waa labadii ragcadood waa tilmaami doonaa qaabka loo tukanayo insha Allah taala xilliga salaadu waxa weeye markay qorraxdu soo baxdo wax yarna ay godka kor uga soo kacdo ayay soo galaysaa xilliga salaadu oo macna wax way qadar rumxin waran qiyaastiisa ama qadarkiisa markay dhulka ka soo kacdo oo kor u soo baxdo xilliga hadii la gaaro salaada waqtigeedii waa la gaaray مثلا anaga oo kale Nairobi markaan joogno taqriiban 5:27 mise 5 iyo bar meelahaas ay qorraxdu noo soo baxaysaa marka hadii 20 daqiiqo lagu daro ama nus saac kale lagu daro hal saac oo kale waxaan ilaha 6 afwan anagoo kale qorraxdu waxay noo soo baxaysaa 6 iyo 25 27 noo soo baxaysaa marka ilaa yani wax weeye hal saac ama 7 subaxnimo ama iyadoo 10 daqiiqo dhiman muxuu waa la tukan karayaa bimaana wax weeye xilliga shuruuqi qorraxdu soo baxday hadii 20 daqiiqo lagu daro oo intay kor u soo yara kacaysa ama 15 daqiiqo kifaayo way xilliga hadii la gaaro salaada waqtigeedii waa la joogaa waa la tukan karayaa muxuu salaadii ciida waxay yiraahdaan fuqahadu waxa fiican si dadku ay u helaan chance ay ku bixiyaan zakatul fitriga in salaada waxoogaa dib loo dhigo salaada ciidul fitriga بينما صلاه عيد الاضحى وميد عيد dambe ee carafada salaadeeda iyada waa la dadajin bay dhahaan si dadku ay jaanis ugu helaan inay udxiyadii xoolihii gowracaan ila salaada gadaasheeda la gowracay labada salaadood marka sidaas ay yiraahdaan laakiin ruuxii zakatul fitrigiisii bixiyay banaan la isugu imaanayana uusan jirin xilliga horeba hadayba qorraxdu soo baxdo wax yarna kor u soo kacdo salaadiisa uu iska tukani muxuu waqtigii waa la jooga waqtigeedu waa waqtigaas way macna
salaada ciida ama ha noqoto midda carafo ama middan ciidul fitriga soon ka dambaysa ha noqoto salaadeeda labada salaadood isku qaab baa loo tukada salaada ciid waa isku qaabka loo tukanayaan waa sidan soo socoto maadaama dad fara badan laga yaabo inay muxuu ahaayey imaamka markay la tukanayaan mooye kaligood haday tukanayaan laga yaabo qaabkii loo tukan lahaa inay waxoogaa ay garan waayaan baa dhici karaysa inaan marka waxoogaa wax yar sharxan jeclahay salaadu horta waa laba ragcadood labada ragcadood waa sida soo socota marka hore ruuxu markuu salaada galo oo Allahu akbar yiraahdo intuusan faatixada akhriin wuxuu 7 goor dhahayaa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 7 goor buu saas dhahayaa takbiirta uu ku galay Allahu akbar ta salaada uu ku galayo waa mid taa kuma jirto 7 kale ayuu takbiirsanayaa 7da markuu dhameeyo ayuu marka faatixada akhrinaya faatixada markuu akhriyo wuxuu ka dambaysiinayaa suurad kale haduu yaqaano ragcada hore faatixada nabigu wuxuu ka dambaysiin jiray suuratul a'la sabbih isma rabbikal a'la hadaadan sabbih isma aqoonina suurad kale qul huwallahu dheh birabbin nas dheh birabbil falaq dheh suurad kale faatixada ka dambaysi kadibna waad rukuucaysaa waad ka soo toosi labadii sujuudood baad caadi ula iimaan hal ragcad baa saa kuugu dhamaatay ragcadda labaad markaad u soo istaagto oo dabcan marka ragcadda laga soo istaagay Allahu akbar baa lagu soo istaagaa markaad istaagto Allahu akbarta aad ku soo istaagtay mooyee shan kalaad haddana ka daba dhahaysaa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah shan baad dhahaysaa kadib markaad shantaas dhahdo faatixadii baad akhrin suurad baad ka dambaysiin nabigu wuxuu ka dambaysiin jiray suurat hal ataaka hadithul ghashiya hal ataaka hadithul ghashiya hadaa taqaano hadaan aqoonina suurad kale ka dambaysi qul huwallahu suuradii aad kari karayso adiga taqaano markaad faatixada akhrido suurad ka dambaysiiso kadib waad rukuucaysaa rukuucdaada markaad dhamaysato labadii sujuudood baa ka dambeeya ataxiyaadkii baa ka dambeeya salligii sidaasaad salaadaadii ku dhamaysanaysaa marka labada ragcadood midda horena waxay leedahay 7 Allahu akbar midda dambana waxay leedahay 5 Allahu akbar oo faatixada ka horeeya sidaas ay marka insha Allah taala ay ku fududahay wax adag ma ah gacmaha kor ma loo qaadaya dib ma laha hadii kor loo qaado walow nabiga sallallahu alayhi wasallam nascad kaga ma sugna laakiin saxaabadiisa qaar kamid ay ka sugantay Abdullah ibn Umar oo kale aimada madhabka Imam Shafi'i iyo way qabaan marka hadii gacmaha kor loo qaadana dib ma la insha Allah taala khudbada ciida ma la akhrinaya laazim ah khudbada asalhan waxa loogu talagalay banaanka weyn ee la isugu imaanayo iyo imaamku khudbaynaya حتى xilliga uu dadku isu yimaadeen oo bankiga banaanka la isugu yimid uu dadka u khudbaynayo khudbadaasi salaada laazimo iskuma xidhna hadaan la khudbaynin salaadu waa asaxaysa marka khudbada waxa laga rabaa imaamka guud meesha guud ee la isugu imaanayo laakiin haday dadku gooni u tukanayaan sida hadda aan ka hadalno kale iyo duruuftan in haysata oo guryaha lagu tukanayo ama ruuxu goonidiisa u tukanayo markaasi khudbo laazim ah khudbo yaani wax way waa la isaga tagaya labada ragcadood baa muhiima salaaduna hatta hadii duruuftu caadi tahay khudbada in la dhageysto waxba laazima waa kii nabiga sallallahu alayhi wasallam waan khudbaynaynaa kii rabowna dhageysto kii rabowna isaga tag sidaas way macna marka salaadii ciida sidaas loo tukan guryaha lagu tukan ruuxii keligii uu iska tukan kara dadkii muxuu ahaayay guri ku wada nool gurigooda ku tukanayaan hal imaam bay samaysanayaan sidaas aan sheegnay ayayna salaadii u tukanayaan u sharaxnay sunnada nabiga waxa kamid ah sallallahu alayhi wasallam salaadan ciida ciidul fitriga intaan la tukanin ama loo bixin in wax la cunaa fiican waliba timir dhowr xabo timira oo tira isdheer ah in lagu afuro xadiidka Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ardaa sida uu sheegayo kaana la yaghdu yawm al-fitr hatta ya'kula tamarat nabigu muusan kalihi jirin ciidul fitriga ciidan muusan u kalihi jirin ilaa uu timira cuno xabada timir ah riwaayo kale waxa uu kaana yaakuluhunna witran tira isdheer buu u cuni jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam yaani wax way 3 5 7
tiradaa isdheer intaan salaada la tukanin in wuxuun afka la geliyo xataa timir haddaadan haysanin wuxuun in afka la geliyo oo la cuno wax la cuno ayaa sunnada ah salaaduna markaa ka dambayso waxaa sidaa ka duwan ciidda carafada ayada waxaa fiican marka salaada laga soo noqdo kadib in la cunteeyo ciidan hadda aynu ramadaankana yani intaan salaada la tukanin in cunto la cuno timir gaar ahaan la cuno ayaa nabigeena sallallahu alayhi wasallam hadigiisii ah ee dariiqi rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam inoo jideeyay waxa kale to iyadana muhiima masalada qabayska oo iyadana in badan la isoo weydiiyo iyadana waxa way dhib male in la qabaysto way fiican tahay lawalow uusan ciidaha in loo qabaystay nascad oo nabiga ka sugan ma jiro sallallahu alayhi wasallam laakiin saxaabadiisa qaar kamid ay ka sugan tahay imaam shaafici imaam maalik iyo aymaduna way qabaan gaar ahaan markii la isoo imaanayo meel dad isugu imaanayaan ay tahay sida salaada jumcada oo kale si ruuxa muxuu ahaay aan looga dareemin muxuu ahaay wax jirkiisa ka soo baxaya oo la kahado si aan loo dareemin bal in la isudgiyo oo la iscarfiyo dharka quruxda badan la qaato dhar cusub haduu yahay kaagii horood nadiifsatay haduu yahay laana ciidani waa shaciiro weyn oo calaamad weyn oo calaamaadka diinta kamid ah weeye in la farxo la damaashaado muxuu ahaay cibaadadaas weyn lagu damaashaado waxyaalaha mubaaxaadka ilaahay inoo baneeyay lagu damaashaado muxuu ahaay ayay kamid tahay oo leynoogu jideeyay la muujiyo marka cibaadada in la yani wax weey in la muujiyo walow hadda duruufahan aan hadda ka hadlaynay ina haysta ay tahay xaalad istitnaa'iya oo hore inoo soo marin haddana inta tabarteena inaynu cibaadadaasi muujino oo muxuu ahaay ciidaasi muujino shaciirada weyn la muujiyo kolba intii dabara iyo duruuftu kolba intay saamaxayso ayadana wax weeyaan waa laga maarmaan waxaan ku gabagabaynaynaa ramadaanka gabagabadiisa iyo soonka dhamaadkiisa waxyaalaha aad laynoogu jideeyay ilaahay aad u jecel yahay waxa kamida inaynu badino takbiirta sida ilaahay tabaaraka wa taala inuu yiri oo inuu sheegay soonka markii uu aakhirkiisa ka hadlayay walitukmilu ciddata walitukabbiru allaha ala ma hadaakum si aad muddada u dhamaystirtaan ilaahayna u weynaysaan hanuuninta uu idin hanuuniyay daraadeed walaallakum tashkuruun inaad ka shukridaan ilaahay tabaaraka wa taala wax weyn buu inoo waafajiyay bishii baa inoo dhalatay way inoo dhamaatay marka allah in la weyneeyo oo qalbiga ka weyneyso carabka ka weyneyso dhaqan ahaan iyo xubnaha ugu weyneeyaan rabbi tabaaraka wa taala hidaayada iyo hanuunintu ina hanuuniyay khayrkii badnaayo ina waafajiyay inaynu ka shukrino takbiirtu marka wax weeyaan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar takbiirtaasi ciidaha la qaado hatta hadii banaanadii iyo meelii la isugu iimaanay masaajidii suuroobi kareenin guryaha iyo xaafadaha iyo jidadka la marayo takbiirta in kor loo qaado ayadana wax weeyaan waa hadigii nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam waana shukri aan ka shukrinayno oo nu mahad celinayno Allah tabaaraka wa taala khayrkii wanaagu ina waafajiyay ilaahay tabaaraka wa taala takbiirta ayada waxay ku egtahay waxa la bilaabayaa isla subaxinka ciida ila subaxda ciida la wadi karaya markii salaada ciida la tukadana takbiirtu markaas ay ku egtahay waxaan ku gabagabaynayaa munaasabada ciidan inoo soo socota ilaahay tabaaraka wa taala nabadaha inuu gaarsiiyay waxaan aad uga digayaa waxa badan ciida marka la gaaro inay dadku damaanshaad iyo fantasiyo iyo waxyaalo fara badan ay sameeyaan walow hadda laga yaabo wax badan inaysan sidii u dhicin haddana waxa dhex gala iyadoo banaan tahay inaynu damaashaad iyo muxuu ahay rayn iyo farax iyo waxyaalo badan inaynu muujisano nicamka ilaahay ina siiyo tabaaraka wa taala haddana marar badan waxa dhex gala munkaraad iyo mukhalafaad shariicada khilaafsan iyo waxyaalo aan loo baahnayn waxyaalo badan oo dhaqan xumo ah waxyaalo badan oo khaladaada ay dadku ku kacaan oo faraxa iyo damaashaadkaasi u geeyayo uga sii gudbaan arintaasi marka waxa weeye laga taxadaro ilaahay nicamku ku siiyay Soomaalidu waxay yiraahdaan 100 sano waqti ku afur inta Ramadaan oo dhan soo soomanayso cibaadaysanaysay inaad ciida aad muxuu ahay aad qasato oo aad macaasi iyo dunuub iyo khaladaad iyo si khaldan aad farxi u isticmaasho waa halis weeye waa khalad weeye meelahaas oo kalena waa munaasabaad kala doonayo in ilaahayna la xuso tabaaraka wa taala nicamku inuu siiyay ka shukrino yani wax way aadna isu ilaalino gaar ahaan caruurta iyo daayarta in aad loo ilaaliyo laga ilaaliyo in aysan yani wax way waxyaalaha khaladaadka iyo yani munaasabadan
inaysan yani wax weeye ayna u gudbin waxyaalo ilaahay tabaaraka wa tacaala ka cadhoonayo waxyaalo shareecada khilaafsan waxyaalo laga yaabo muxuu ahaaye inay xataa cibaadaadkooda saameyn ku yeelato iyo aakhiradooda in aad iyo aad looga taxadaro laga ilaaliyo weye ilaahay tabaaraka wa tacaala soonka maalmaha inoo dhiman ya takbiirta masaajida inay ka baxdo way fiican tahay masaajida laga takbiirsado Allahu akbar laga yiraahdo waxay ka mid tahay mikrofoonadaasi maadaama hadda nidaam diidayna uusan jirin shaciirada iyo kor loo qaadayna ay ka mid tahay sida aadaanka hadda masaajida looga aadaamo in takbiirta laga qaado mikrofoonada aaday u fiican tahay waxay ka mid tahay walitukabbiru allaha ala ma hadakum takbiirti shaciiradii la cilaaminay bay ka mid tahay marka bisha waqtiga inoo laaban ilaahay nabad ha inoogu dhameeyo ilaahayna tabaaraka wa tacaala cibaadadii iyo acmaashii iyo khayraadkii aan samaynay ilaahay haynaga aqbalo qabuulka ayaa muhiima ilaahay hayna aqbalo oo ilaahay tabaaraka wa tacaala haynoogu dambi dhaafo allah tabaaraka wa tacaala cibaadaadka kale ka dambeeya degarasoonka iyo salaada ciidan hadda ka hadlaynayna ilaahay sidoo kale haynoo fududeeyo hana inaga aqbalo allah tabaaraka wa tacaala fi khitaam hadhihi aljalsa waxaan weydiisanaynaa iyo ramadaanka gabagabadiisaba in ilaahay tabaaraka wa tacaala musiibadan inagu habsatay in ilaahay tabaaraka wa tacaala inaga qaado oo ilaahay tabaaraka wa tacaala caafimaad inoogu bedelo ilaahay tabaaraka wa tacaala intii dhimatay inuu u naxariisto inta jiran caafimaadkoodii waayeyna ilaahay tabaaraka wa tacaala caafimaadkooda u soo celiyo innagana ilaahay tabaaraka wa tacaala inaga badbaadiyo هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم